halkani ma aha bad iyo webiyo fatahay balse waa doox oo ku caanbaxay gobolka Togdheer ee mara bartamaha magaalada Burco kaasi oo ay soo mareen daadad xoogan oo gilgilay waxyeelana u geystay biriishyada lugta iyo gaadiidka ee magaalada Burco dadkan ayaa ahaa kii ugu weynaa ee soo mara dooxan kaasi oo halis geliyay dhammaan biriishyada isla markaana ay biyuhu dul mareen qaar kamid ah sababeena inay hakad galaan isu socodka gaadiidka iyo dadkuba muddo saacad ah gudoomiyaha golaha deegaanka degmada Burco Maxamed Yuusuf Cabdiraxmaan Muraad ayaa ka warbixiyay khasaaraha soo gaaray biriishyada waxa soo maray daad aan taariikhda inta la garanayo hore u soo marin daadkaas wuxuu gaaray xawaali 6 mitir buu kor gaaray waayo biriijka yar ee lugta oo 5 mitir iyo wax ah dushu ka mar marka waxaan isleeyahay 6 mitir buu ku dhawaaday muxuu ahaayay daadkaas khasaare imka inta noo muuqata saddexda biriij buu wuxuu gaarsiiyay khasaare ayuu gaarsiiyay biriijkan imkaan joogno biriijkii China dhisay wuxuu gaarsiiyay khasaare hoosta warma hayno iyo bilariska warma hayno laakiin inta imka noo muuqanaysa waxa jabay dhulkii kaabadihii biyaha cilinaya oo dhan baa jabay waxa jabay kaabadii dhexe ee cilinaysay maartay ciidda u cilinaysay bilariska ayaa jabtay biriijkan yar dhexe waxa jabay waa foot biriijka Elgooni waxa jabay birihii iyo sabadihii biriijka dhakada ka saarnaa ee dadka maartay ka celinayay inay ku dhacaan toga ku dhacaan baa jabay waxa qodmay dhul alla dhulkii loogu talagalay inay daadka celiyaan baa qodmay biriijka shishe ee deera biriij isagana intaan leeg baa ku dhacday hadduu imika sii socdana waxaan ka baqaynaa khasaare inta ka badani inuu yimaado xildhibaano xogayaha gobolka iyo taliyaha qaybta booliska ayaa iyaguna ka hadlay fariin u diray bulshada Burco waxaanu taaganahay biriishkii qadiinka ah ee Burco ee koowaad oo halis ku jira wuxuu dumiyay qaybtii restoration ku sameynay maalmihii berigii dhawto sanadkii hore ee 17ka biriishkaasi waa saddexda biriish marka kana uu khasaaro xun saddexda biriishba biyo garaacayaan aragtaan biriishkii weynaa ee China u dhisay ee koowaad ee aanu dul taaganay maanta nimaarkii inuu dhinaca fujistay kii yaraan sameynay oo adkaa oo aad u adagnaysay dul maray marka waxa loo baahay in la iskaashado shacab iyo dawlad hoose la iskaashado oo ay wax ka qabanay insha Allah ganacsatada gobolka Togdheer waxaan ku baaqaynaa inay u dhagan gulaadaan maamulka gobolka iyo degmada biriish ee magaaladu lahaydba ay buuxsameen dadweynaha waxaan ugu baaqaynaa oo aanu leenahay biriishka ka baxa waa nimco Ilaahay laakiin dadweynaha waxaan doonaynaa inay inta ka dul dhaqaaqaan oo inta biriishka la joogo inta bidaadku soconaya biriishka ka dhaqaaqaan dadweynaha faraha badan barasaab ku xigeenka gobolka Togdheer Maxamed Cabdilaahi Ibrahim Nafaqo ayaa digniin u diray dadweynahu inay ka fogaadaan goobahan xiliyadan oo kale marka koowaad waxaan u sheegay ummadda reer Burco dooxyada daadka maraya maanta aad iyo aad buu fara badan yahay waqtiyada indhawaale ummadii taariikhda haysay biyahan oo kale may arag marka waxaan u baahanahay u sheegnaa reer Togdheer iyo reer Burco inay iska ilaaliyaan oo booliska ay maqlaan oo biriishyada ay ka dul dhaqaaqaan Absaaq Faarax Cabdilaahi TV qaranka Soomaaliland magaalada Burco.